دكتور محمد عبدي قبوسي oo goor daba oo galabta warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa nasiib darro waxa uu ku tilmaamay in iska daa xukuumaddu in ay joojiso qaadka xataa ay awoodi weyday in ay wacyigelinta ku darto si bulshada looga digo halista qaadka iyo inuu soo xambaari karo coronavirus xanuunkan ma aha dadku hadduu haysto dadkeena waxaan ka maqlaa ma yadii geerida Ilaahay baa qoray waqtigayga dhaafi maayo waxaan idin sheegayaa waxa ka badan geerida uu geystay waxa ka badan 10 jeer waxa ka badan dhibaatada aan xal loo hayn oo kaga tagayo qofka markuu dilaya waa mar waxbad aanu kaga tagin laakiin qaar badan oo ka badbaaday ayaa samabadii wada fadhiyaan ayaa maartay wadnihii dhaawacmay ayaa kaliya dhaawacmeen ayaa maskaxdii dhaawacantay marka qofku wuxuu la noolaanayaa xanuun culus oo waliga la nooleeyay yaan la idin ka dhaadhicin geeri kaliya arintu ma geeri ma waxa la filayaa dhibaatada uu ka tagay dadka uu ka tagi doono ee liita ee uu kaga tagay dhibaatadaas daweyntoodu kharashkeedu inaan dawladda waaweyn xataa bixin kari doonin muddo dheer walaalo marka qof walbo ee maanta jooga anigaasna aan ahaade geeriha ku talagalo haddaanu dhimana dhaawaxa ku talagalo haddaanu dhaawacmina ha ku talagalo qof uu jecel yahay qaraabadiisa geeridiisa iyo magaciisa ku talagalo maxaa marka lagu kala guuleysan karaa dagaalka adag waa dagaalka dawladaha China u dhow ay galeen ee ah inta aanu dadka layn ee u soo shaabixin inaan geeysano waxa la wixii awood aan leenahay waxa weeye hadduu na soo galo xanuunkana soo galo bal waxa qiyaastaan ma sariiraan u haynaa ma dhaqaatiir baan u haynaa ma kalkaaliyaal baan u haynaa ma dawaan u haynaa ma mishiinada neefta guro kiiba qaali yahay baan u haynaa intaba aan idin xaqiijinaya oo ka shaqeynaya midna uma hayno haddaba qofka xanuunsada xagee buu qabanaya marka waxa weeye intaanan dhibaatada meesha ugu dambaysa la gaarin maxaan qaban karnaa wayna gaarnaa haddaba jaadku muxuu ka yahay waxyaalaha aan ka hadli doono jaadku anuu maanta ka hadli maayo caafimaadka guud waxa uu leeyahay ee horay u lahaa anuu waxaan ka hadlayaa waxa weeye COVID-19 muxuu qayb ka qaadan karaa jaadkan waxa weeye cunto aan daboolayn aan bac lagu soo xirin aan warshad ka soo bixin aan la soo mayrin aan la soo daweyn oo iyadoo nadiif ah qofkii bacda uu ka furanayo ee waxa weeye waxa lagu dad baa gacan ku soo habeeyay gaari baa la soo cararay dad kala taabtay meesha ugu dambaysa aan ka soo qabanno ee lagu iibinayo koleyga la yiraahdo maalin qof baa soo maraya uu iska eegaya uu naqaysanaya gacantu ku taabanaya uu ka tagaya adaa yimid adaa qaatay kii la naqaystay kii hore ee taabtana COVID-19 buu qabay xanuunkan buu qabay coronavirus ku keenay waad la baxday gurigaagii baad la tagtay caruurtaadii yaa ku damaanad qaadaya xaaskaaga jecelayd yaa ku damaanad qaadanaya walaalaha iyo qaraabadaadii alla dhex fariistay yaa ku damaanad qaadaya waxa weeyaan ibtilo aad ku fidinaysid qoyskaagii dadkaagii saaxiibadaaba la fariisateen mafrish baa fariisatay yaa ku damaana qaadaya mid idinka mid inaanu dushiisa saarnayn xanuunka aan la soo taaban inta gaari taabanaysa inta socod wax ku taabanaysa taabashadu marka waxa la isku raacay inay tahay sidaa xanuunka ee ugu badan mid baa yiri waan iska meyrana walaalo waxaan ku sheegayaa gacmaha biyaha markii lagu meero sidaad ku cuntay cunto maalka dufankii miyay ka baabiin kartaa waa maya xanuunkan waxa ka tirtiri kara oo dili kara oo qura waa biyo saabuun ay wadato weey marka jaadka ma saabuun baa ku meeraysa kuma meeri kartid naftaada u baq nafta xaaskaaga u baq nafta ubadkaaga u baq nafta maaragtay dalkaaga iyo dadka jecesha u baq maanta ito mas'uuliyadda ugu culus aan kaga bixi karnaa dalka waxa weeye qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo دكتور محمد عبدي قبوسة waxa uu si toos ah ula hadlay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumadda soo hartay hadii ay yiraahdeen dhaqaalaha naga soo gala canshuur baa naga soo gashay madaxweyne waxa kula hadlaya anigu waxaan ku haystaa laba takhasus oo ay yar tahay qof Soomaaliya ama Somalilander in haystaan dalka Ireland Dublin baan labada takhasus ka soo qaatay ilaahay ma hada ka gaartay Cabdiraxiim Caabi Faarax ayaa koorsiga iga bixiyay
sanaday ugu qaadatay mid waxa la dhahaa tropical medicine midna waxa la dhahaa international health labaduba waxay nala soo baray xanuunada lamida covid-19 ee caalamka ku faafa sidee looga hortagaa sidee gacan looga qabtaa waxa weeye barigan jabhada ahayn barigan aan dibadda mareynay ayaa qorshaha ahaa inaan hay'adaha u shaqeeyo caalamka awood u bartay inaan maanta dalkayga uga faa'iiday way qaado talada qoxa kula hadlaya nin waayeela oo dawladii Maxamed Siyaad Barre ahaa wasiir ku xigeenka u qaabilsanaa xanuunada faafa sida viruskan oo kale ana mas'uulka ugu weynaa min Hargeysa ilaa Kismaayo xanuunada faafa aniga ahaa khibradda inta leeg maygu aamini kar weyda madaxweyne haddaan ku iraahdo jaadka korkiisa uu saaran yahay jeermisku miyaadan ka naxi karin qofka aad u tahay aabe qofka aad u tahay walaal yaasi ku xaqiijiyay inaanu adiga ku soo galin marka dambe saan anugu iyo adigu liiska geeridan ku jirnaa ku talagal haddaan ka badbaadnana liiska dhaawacan ku jirnaa haddaan ka badbaadnana qaraabadana geeri iyo nolol ku jirta madaxweyne waa inaan mas'uuliyad culus saarna madaxweyne miyaan waxaan laga nax ahayn in guddiga wacyigelintu ay gacmaha mayra sanka xirta waxaan yeela ay ka baqeen ama ka xishoodeen xurmada jaadku leeyahay inay ku daraan wacyigelinta haddaadan joojin karin madaxweyne waxaan ka codsanayaa wacyigelinta ku dar qofku isagu haystilo laakiin qofku muxuu istilaa wuxuu galaafanayaa qof walbaba ummadii kale galaafanayo dhaqaalaha naga soo gala madaxweyne maxaa diidaya mushkiladani maaha mushkilo waaraysa waa mushkilo 40 casho gudahood laga yaabo dabeyshaas inay na dhaafto siday dalal kale u dhaafayso maaha mushkilo waliga jooji ah waa 40 casho 40 ka casho waan xambaari karnaa intaas uu saameyn karo dhaqaalaha wadaadada ganacsatada madaxweyne shiri sakadii soonki ayaa taagan maxaa diidan in la ka qaado lacag maxaa diidan lacagta in raashin lagu soo gado ilaa arrimo way sii xumaan doonaan inaan haysano kaydkeeni bilo dalkan ku filaa maxaa diidan inteena jilicsan sakada lacagteeda in laga gaarsiiyo raashin iyo wax loo qaybiyo dadkii loo qaybiyo aabihi ummadata nacay kuma lihin ya waxaan maanta ku sheegayaa inay doqonnimo tahay shakhsi kasta oo Soomaaliland jooga maanta in uu siyaasad iyo mucaaradnimo iyo arrimo kale iyo dhexdeen ay ka furmaan maanta dalku dagaal buu ku jiraa dagaalkana afaafkiisa baan mareynaa mid ku nacab iyo mid ku jecel ba waxaan kula talin lahaa ya waan anigu ugu horeeyo waxaan kula talin lahaa in lagu daba faylo ee adiguna waana qaado madaxweyne dadkaagu weeye dadka dhawaan ku arki doontid xabaalo fara badan ilaahay nagu ma keenay hadii taladu naga xumaato waa dadkaagi madaxweyne isweydii u yar baada caafimaadka maxaad haysan bishinka neefta imisa haysan leh markuu soo rito oo uu maalin walba soo daadinayo 100 qof ee neef u baahan xageed ka keenaysa madaxweyne dagaalkaagu waa inta hore madaxweyne xasan Suleymaan Haruun xasan galay wararka Hargeysa